dalka Sacuudiga ayaa 2016 dhamaadkii sanadka 2016 waxa uu markaasi xayiraad saaray xoolaha Soomaalida. Haddaba maxay tahay ujeedada ka dambaysa xilli adduunku fara ku gabad yahay isla markaana meel kasta ay bandow tahay kala xiran yahay adduunku inuu ka dhigaan xayiraadda ka qaado xoolaha Soomaalida. Dabagal dheer aanu ku sameynay iyo falaqeyn xooggan ayaa laba sababood ka dhigtay xayiraadda uu xilligan Sacuudigu ka qaaday xoolaha Soomaalida mid isaga dan gaar ah oo dantiisa ka dhaxarkay. Sacuudigu wuxuu aaminsan yahay xilligan xoolaha Soomaalida gaar ahaan iduhu inay yihiin daawo markaasi la dagaalami karaysa ama ka hortagi karaysa ama yareyn karta dhibaatada fayraska adduunka wareeriyay ee coronavirus. Qaybta labaad ee markaasi uu furay xoolaha Soomaalida ayaa ah in uu markaasi kayd ka dhigto xoolaha Soomaalida oo xilligaasi uu arko isagu inay yihiin kuwo markaasi ka nafaqana badan kana markaasi daawo badan xoolaha wadankiisa. Sacuudigu wuxuu rabaa kayd ahaan inuu dhigto xoolahan isla markaasina uu kaga baxo xaaladan adag. Haddaba Soomaalida maxaa la gudboon markii Sacuudigu jaaniskan ka faa'iideystay isla markaana uu dantiisa ka dhaxarkay xoolahaaga? Jaaniska kaliya ninka Soomaaliyeed u bannaan waxa weeye inuu xoolihiisa ku gato qiimo markaasi macquul ah oo aan ahayn qiimihii hore lagaga gadan jiray. Neefkaagu dheeman ayuu noqday, dheeman ka dhig, ku gado qiimo ku raali geliya. Ha ku gadanin wax la dhigma qiimihii hore oo ka faa'iideysa jaaniskan. Sacuudigu waa ku qasban yahay waana u baahan yahay qiimo kastoo aad ka dhigtin maanta neefkaaga. Mahadsanid. Subscribe kana channelkeena ka heli.